qaar kamid ah cuqaashiyo waxgaradka ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo la hadlayay TV-ga caalamiga ee SBS ayaa ka hadlay xarigii loo geystay laba xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Oodweyne iyo sidoo kale maayir ku-xigeenkii degmadaasi. cuqaashiyo waxgaradkaasi waxa xarigaasi ku tilmaameen mid sharci darro ah. sidoo kale waxa ay baaq u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana kamid ah hadaladoodii xildhibaanada golaha deegaanka ee laga soo doortay degmada Oodweyne gobolkiisa Daadmareed ee soo sharci darrada ah aan sharciga waafaqsanayn ee faqashaynta looga baxay guryahoodii iyagoo xasaanad leh. waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa Muuse Biixi Cabdi waxa soo wixii aad lahayd waan ka xanaaqay oo Islam u galay oo waxaad lahayd waan ka soo dagaalamay dadkuna caburin iyo faqashayn dalkan waxaan u haysan inuu soo dhaafay laakiin waxay maanta u aragnaa inuu galay marxaladii Maxamed Siyaad Barre ee laga soo gudbay inuu maanta dalku marayo. xildhibaan la soo doortay oo karaamo leh oo xasaanad leh oo loo soo marin xildhibaanka waa la xidhi karaa laakiin waxa lagu xidhi karaa sifo sharci ah ayaa loo soo maraya aan loo soo marin oo loo faqasheeyay oo aaragiyuudan loo samaystay faqashaynta ay guryahooda kala baxday waanu ka xunnahay. wax kale aan saakan ugu dareenkayga ka muujinaya oo shacabka u sheegaya shacabku inaanay ku qancin kuna xasilin caburin iyo qabqabo iyo xidhid ay ku xasilaan kuna tala qaataan wanaagga iyo istashiga iyo tanaasulka. waxaan leenahay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha oo arrintaa la sheegayo in uu toos u amro nin ganacsado oo la yidhahdo inuu sicid inuu arrintan sameeyey maxamed muuse ninka la yidhahdo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha. waxaanu leenahay arrintaasu maaha arrin dawliya maaha arrin sharciya maaha arrin sharciga waafaqsan arrin ka dhacday gobolka Daadmareed oo aad iyo aad ugu xildhibaanada laafduubay ee laga baxay guryahoodii ee aariyadu u dhacday waxaa aad iyo aad ugu xunnahay. xildhibaan sanadiisii oo soo sharciya oo sifo sharciya ku yimi in haddii uu xildhibaanku gafay uu dambi galay in wuxuu leeyahay waaran gobol buu joogaa waaran qabashuu leeyahay maxkamad baa la soo mariyaa maxkamad baa soo waaran galaysa waa la qabtaa laakiinse in la afduubo oo aariyadu lagu dalbado daadar sultamaha waa sharci darro weey. waxaanu ka diidnay dawladdii dhexe ee Soomaaliya ka diidnay taasoo ku qalibnay 1988 aan ku qalibnay lagama ogola waxa dadkuna wuxuu ka soo xumaadaa waxa weyn foolxumo ayuu ka qaadayaa iyo dhibaato iyo dajin la'aan iyo dhibaato ka qaada taasoo waxa soo kale sifo sharci ah in la maro weey. waxa weyn markaa waanu ka xunnay arrinta aad iyo aad ugu xunnay. waxaan u sheegnaa madaxweynaha Muuse Biixi arrinta daan si degdeg ah wuxuu ka qaban kaybel iyo ina awshiid iyo nidaam wax isku daba socdo isku guuleed marqoodan anagu yeeli mayno in xildhibaanada waxyaalaha noocaas sifaha sharci darrada lagu qabto oo lagu xidho anagu ma ogolin. warkan dhiilada leh ee soconayay ee magaaladii iyo dadkii galay ee arbushay waxaan dantan ninkan baaxushtariga u xidhxidhan ee la leeyahay qof walba waxaa la marinayaa gurigiisa hortiisii waddadii u marayey qaar baa ku jajabay baalkii la qodaaya ee maxaanku idhaha lalahaa waxbaa la dhigayaa. annagu ciddale waxaan dawladina male hadday dawladi leedahay dee dadkay kala hadli laydo wuxuu sheegi lahayd qof waliba isagoo iska joogaba dariiq aqalkiisa u soo marayey ayaa la qodayaa oo cid baa qodaysa waryaa qodaya mooji laisweydiin maayo dawladdu sheegi mayso. waxaa la sheegayaa oo aanu reeriyooda xalayna ka maqlaynay niman maxaanku idhahdaa dawladda la doortay oo xiisaanad leh oo aan laga qaadin oo la xidhxidhay iyagiina ilaa xalay baa la sheegaya. waxaanu leenahay taas hadday jirto dee dawladnimadii dawladdaad ka mas-uulahayd dalkana ka mas-uulahayd hadday jirto dee waxaanu leenahay waxa laga qabto dee haddii aanay jirin cid waliba meesha ay degan tahay iyadaa markaa ku shuqul leh
oo dawladnimadii wada baaba'aysaa isku soo wada duuba ma markii horeysay xarig noocan oo kala loo geystay xildhibaanadaasi waa Shaakir Cabdi Axmed SBS TV magaalada Burco.